Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kulanka asluub iyo sharekoodka teoriga qaybtiisii aan ku bixin jirnay af Soomaaliya. Soo noqod wanaagsan, sidoo kale la socod wanaagsan. Sida aad la socotaan dadkiina hore ula socda casharada, waxaan sharaxnay baarmihii labaad isla markaasi ilaa iyo su-aasha labaatanaad. Haddana waxaa hore usii wadi doonaa su-aasha 21aad ee marka la socod wanaagsan qalin iyo buug soo qaata si fiicanna ula socda cashirka mahadsanidin. Su-aasha 21aad waa su-aal sawir wadato. Inta badan sidaa mar walba hore u sheegay, sawir markaad aragto si fiican u fiiri, sawirka muxuu sheegay, sawirkan muxuu yahay. Inta badan haddii labada calaamadood oo hadda tilmaamaya haddii laga bixiyo, waxaa wadadu inay tahay family split oo macnaha tahay in wadadu laga leeyahay isla markaasina aad dadka kala siinayso. Micnaheedu marka waxay tahay calaamadani wax ayay kaaga digaysaa ama qatar ayay kuu sheegaysaa mar walba markaad aragto calaamad gaduuda oo geesaha kale dhexda markaasi jaalla ka ah. Okay, waxaad ku socotay wado markaasi anchor rigged ah oo markaasi hal dhinac laga galay kaliya oo wadadaas waxaa markaasi ku aragtay lane refram inay calaamadani ku dhagan tahay the number markered. Maxay tahay markadan ama calaamadani maxay tahay? Su'aalaha inta badan waxa waaye waa isku qaseen ilaa ayaa lagu siiyay jawaab markaasi kala duwan. Muhiimaddu qofka haddii uu calaamadan yaqaano waxa waaye jawaabta saxda siduu u helo way fududahay. Marka maadaama aan boofsiinayno su'aalaha inta badan dib ayuu qofku u noqon karaa, laakiin waxaa muhiim ah jawaabta saxda iyo calaamadda waxay nagu digayso inaan baranno. Calaamadani waa calaamad markaasi inta badan la dhaho mootanda traffic oo ah waxa waaye wadadu waxa waa gawaari kale ayaad la kulmi doontaa. Marka ka taxadir oo xoog ha ku socon waaye wadadu laba macnaha oo laga soo galo kuwa intuu socdana hal wada ay isticmaali doonaan. Marka waa la siinayaa wadada. Marka muhiimaddu marka jawaab noocaasi aan fiirino waxa waaye diida fiiri your can is tracks for motor traffic. Waxa mar dhow ama goor dhow waxaa imaan doonta wado markaasi motor traffic ay gawaarida markaasi siinayaan. Haddii aan jawaabtu hubino waa jawaabta diida waa mid sax ah. Su-aasha 22aad waxaa ku socotaa 70 ayaa wadada ku socotaa kilometer bartime Landsberg ayaa markaasi ku socotaa Hewland Mobiles Hogar sida Hamlet utan for asphalt Canton. Gaariga lugihiisa adigu marka ku socoto wadada ayaa qaybta macnaha lugaha afka hore ayay waxay gashay geeska wadada ayuu markaasi ku dhacay. Sidee ayaa sameynaysa ama sidaad markaasi gaariga ugu soo celinaysaa wadada? Way su-aasha la weydiiyay waa su-aal markaasi ah farsamo ama bashooli lagu weydiinayo. Xaaladdan oo haddii kugu dhacdo qaabkee ugu soo bixin kartaa gaariga qaybtaas aadna wadada dib ugu soo ridi kartaa. Okay, jawaabahana la siiyay waa jawaabo sidoo kale ABC oo kala duwan isla markaasina wax yar lagu kala duwan laakiin la kala bedelay. Muhiimadda aan jawaabta ka raadinayna marka maxay tahay? Fiiri meesha u dambeyso fiiri oo ah diida iyo isla bargaasan oo steer for shirkad u bavaagan. Su'aalahan kale muhiim maadaama inoo ma akhrinayno oo si aan waqti ugu faa'iideysano. Waxa waaye gaariga marka uu meel karo oo marka macnaha god uu galo kale oo aad rabto inaad marka kor u soo korto maadaama kaantiyada wadooyinka inta badan ay yihiin meelo markaasi god ah laamigana uu ka hooseeyo. Maxaa sameynaysaa marka iyo isla bargaasan gaaska ayaan deenayaa oo steer for shirkad u bavaagan macnaha si tartiib ayaan marka anigoo marka adoo gaaska siinayana oo xawaaraha siinaya markaasi wadada si tartiib ah ayar u soo galaysaa. Laakiin haddii aad awood isku dayo inaad ku soo korto ma sameyn kartid. Mar walba waa inaad isla bargaasan oo steer for shirkad u bavaagan wadada ayaa tartiib u soo galaysaa si uu gaariga markaasi hor kugu sii socdo. Su-aasha 23aad Vilken av dessa kunskap hos en förare som mest avgörande för att han eller hon ska undvika trafikolycka. Marka laga hadlayo dadka oo fiican oo macnaha inta badan aadka oo xirfadda u leh aqoontana u leh oo mar walba ka taxadira inuu markaasi imaado shil waa kuwee ayaa lagu weydiiyay. Marka inta badan waa kuwa guud regal kunskap oo markaasi aqoon fiican haysta waaye dadka inta badan ka taxadiro waa B sidaad u jeedaan. Su-aasha 24aad Vilken av dessa är den bästa om du vill minska utsläpp av din bil? Maxay tahay waxyaabaha oo macnaha markaasi ku sameyn karo saameynta haddii aad gaarigaaga aad ku socoto yareyn karo qashinka iyo waxyaabaha kaloodisiidka oo gaarigaaga sii deynayo. Maxay tahay waxyaabaha inta badan oo aad ugu fikirayso si aadan si fiican oo gaarigaaga macnaha sida ugu fiican oo u socdo oo aadna ku yareyn karto inuu gaas badan wasakh badan sii daayo. Su-aasha waxay ku leedahay maxay tahay sida ugu fiican oo maaragtay ugu macquulsan oo aad ku yareyn karto qashinka gaariga oo qaaca badan u sii deynayo waxyaabahaasi aad ku sameyn karto maxay tahay? Inta badan marka waxa waaye marshooyin gaariga ayaa markaan laga hadlayaa qofka sidoo markaasi ugu taxadiro.
marka waxa waaye your sure bahogasti moilet vexel macnaha it means haddii aad cid ku dhaqaaqdo oo laba aad geliso kale inaadan saddex iyo waxaas aadan sameynin oo aadan afar kale u boodi karto mar shaka bood aad sameyn karto aad mararka qaarna aadan u baahnayn inaad istaagto aad iska ilaaliso oo yacni aadan istaag badan aadan sameynin mar walba gaariga aad istaagto haddana aad sheelareyso gaas badan wasaqba markaas sii deynaya marka your sure bahogasti moilet vexel oo ah yacni laba inaad ka booddo kale saddex u booddo saddex haddaad ka booddo kale ama afar u booddo shan oo kale oo gaariga aad ku wado xawaare markaas isla eg barasho markaasi oo wanaagsan aad ku wado su-aasha 5 iyo 20 okay maxay tahay waxyaabaha saxda ka ah raqoon state waxyaabaha saxda ka ah maxay tahay raqoon stateka inta badan muxuu yahay marka waxa waaye inta badan waqtiga uu qofka uu khatarta ama waxyaabaha iskaga ilaalin karo waa goormee marka waxa waaye ama marka uu arko kale uu isku dhicin iyo waxyaabahaas raqoon stateka maxaa sax ka ah jawaabta marka waxay noqonaysaa a oo the believe längre när föraren måste välja mellan olika alternativ oo micnaheedu tahay haddii uu darawalka tusaale ahaan uu khatar u arko raqoon waxaa lahaa marka uu qofku khatarta u arko waqtigaas uu ku fikirayo inuu joogsado ama inuu wax kale uu sameeyo oo macnaha inuu si iskaga ilaaliyo khatarta imaan karto marka inta badan waa inuu joogsado qofka ama waa inuu hore usii socdaa marka waxaa ugu daray inta badan waxaa waaye marka när föraren måste välja mellan olika alternativ laba arrin markuu markaasi kala dooranayo haddaan si isfar dhahno jawaabta waa aada sida ujeedaan okay su-aasha 26 du ska köra iväg från en korsning waxaa waaye waddo ayaad markaasi yacni ka gudbaysaa wadaduna marka waxaa waaye waddo markaasi simbirxasho leh waaye maxay tahay waxyaabaha oo aad macnaha vaglet oo halka waaye hur ska du göra för att lasta komma iväg macnaha wadadii marka waxa waaye koshninka ayaad ka baxday gaarigana wadadan maadaama ay tahay simbirxasho maxay tahay waxyaabaha ugu fiican oo aad sameyn karto oo gaariga markaasi aad dib wadada ugu soo celin karto su-aasha marka waxa waaye maadaama wadada simbirxashka barafna uu yaalo inta badan gaarigu lugta inay iska wareegtaa laga yaabaa dhulkan uu dhalo u yahay maxaa sameynaya marka biida marka fiiri yo dra ut parkering bromsen macnaha parkering bromsigaha ah ay ambreg ayaa gaariga macnaha u taagaysaa oo inaa isticmaalayso kale iska dhigaysaa oo losor den loxom samtidigt som jag ger gas och samtidigt jag ger mer gas än normal adoo markaasi gas siinaya ama xawaare yar ku darayo iyadoo markaasi xawaare yar oo normal aad ku darayso aadan xoog ahaynin marka gaariga si oo markaasi adoo wax yar inaad joojin isku day haddana aad macnaha lugta ayaad markaasi gaariga waad cariirinaysaa si uu markaa yacni oo wadada yacni isha uu caadi u noqdo uu simbirxashada waxyaabahaas dhigo inta badanna waxaa waaye gaariga haddii lugo xun ku xiran yihiin oo kale ama dhammaaday way adag tahay laakiin mar walba waxaa fiican qofka inuu lugaha gaariga markaasi xilliyada winterka oo kale iska kontrolo okay su-aasha 27 ama 27 ama 27 hur ska du göra after detta vägmärkering maxay tahay waxyaabaha aad sameynayso markii aad calaamadani gudubto calaamadan macnaha waxaa markaad gudubto ama maxay sheegaysaa maxaase sameyn doontaa calaamadan inta badan waxaa wadada inay hal noqon doonto oo waxa waaye oo la siin doono kale okay wadada halay noqonaysaa waana markay isku darsoomaysaa hal been isku soo noqonaysaa marka bida fiiri marka jag ska alltid lämna företrädet ur fordon från höger macnaha maadaama wadada hal ay soo noqotay oo yacni gawaarida kale wax walba sharciga ka shaqeynaya waxa waaye alltid waa inaad lemnaysaa företrädet ur fordon från höger gawaarida ka imaan doono dhanka midigta mar walba inaad ismeynis höger regel ayaa markaasi ka shaqeynayo maya cafwan waxa waaye su-aasha jawaabteeda jag ska använda samma väg tillsammans med trafik waxa waaye calaamada maadaama isku darsoomayso waxay noqonaysaa inay marka noqoto waddo isku soo darsoontay oo markaasi hand listening waa marka oo macnaha dadku ay isla soconayaan waxay noqonaysaa marka hal waddo oo ah mid overiga trafiga oo macnaha gawaarida kale ka dhexeeya waay macnaha calaamadani wadadii macnaha isheeg waa hal bay soo noqon doonta waaye oo sama unbendinga la sameyn doono oo dadka kale gawaarida kale isla isticmaalayo marka waa inaad marka ka taxadirta iyo calaamadaasi ku sheegaysaa waa jawaabta waa ujeedaan waa c su-aasha 82 calaamadana nala weydiiyey waxaa lagu leeyahay gaarigaaga adoo wato ayaa gaariga laambahan ama nalkan ayaa markaasi kuu soo shidmay ama instrumentigan the innabar calaamadani maxay tahay waxyaabaha ay sheegayso ama waxyaabaha ay marka noogu digayso waayo su-aasha maxay noogu digaysaa marka
waxa waa calaamadan inta badan waa calaamada bromsiga ama fariinka gaariga ah, waxayna noo sheegaysaa in något är fel på bromssystemet, kör inte vidare. haddii waxyaabahan oo kala dhacaan inta badan gaariga inaad hore usii kaxaysa maahan, waa inaad markaasi gaariga dhigtaa oo marka biil baarar uu qaadaa oo bareegta ugu dhow ama la jiidaa meesha ugu dhow garaasha lala geeyaa. haddaan dhahno si isfar oo ujeedaa något fel bromssystem, kör inte vidare. su-aasha 29aad waxaa waaye a iyo b laba wada ayaan haysanaa. Du ska försöka räkna fram gäller högerregeln någon av korsningen. labadan xaalad ujeeda högerregel wax la dhaho miyuu ka shaqeeyaa haa mise may, ama labadaba macnaha ii sheeg. waxaa waaye inaad kala doorto keliya waa jawaabaha lagu siiyo oo inta badan n part a b ila maarata booda ila nay. marka su-aasha aan dooranay sawirka marka qofku waa inuu si fiican u fiiriyaa su-aasha la dooranaya. marka waxaa waa yoo iyo booda korsningen, sababta wax calaamad kale ujeeda ma lahan, waa calaamado malaha wadada idmeelsan waxaa korshniyadani dayalar hoogar regl waa ujeedaan. su-aasha 30aad baabuurkaaga bashumbilka ayaa wadataa oo markaasi kugu xiran sledbag. okay, maxaa sameynaysaa marka aad calaamadani after du har passerat waxay tahay calaamadan markaas sameynayso waxyaaba aad ka taxadirayso ama aad markaasi iska ilaalinayso waaye su-aasha lagu weydiiyey. marka inta badan waa ujeednaa waxa waaye waxaa imaan doonta wado 10% camal u ah yani degaan deg ah ayaa markaasi aad macnaha la kulmi doontaa, waxayna dhahaan nesferpake oo macnaha wadadu waxay maaragtay degaan deg bay leedahay waa muhiimada. okay, marka diiga fiiri iyo vexer normat net macnaha waa marshada ayaa waa inaan bedela oo qayb hoos u bedela after some maxaa yeelay iyo narma may n brandasopaka waxaan u dhowahay inay mar dhow meel marka oo macnaha uu god yar oo god aan dhihine oo degaan deg ah ayaan u dhawaaday oo adiga maaragtay waa inaan ka taxadiraa si aan gaariga meel sax markaasi ugu hayo uguna wado. okay, su-aashani su-aasha 31aad waxay ku leedahay du ska köra in motorväg från accelerationsfält vägriktning. adigoo wadadan saaran oo wada waa highway waaye, baaburada ujeedaan laba shorfalt waaweyn oo baaburada xoog ku socdaan jiro, adiga dhinacan ayaa kasoo gashay. maxay tahay waxyaabaha saxan oo markaasi lagaa doonayo xaaladan ah marka inaad sameyso? marka kuwa inaan ogaanaa markii highway ay tahay wadadu waxaa qasab nagu ah gawaarida nagu jiro way naga leeyihiin sababtoo iyaga 120 ama xawaare xoog ku socdo, adigana wadada gaarigaaga waa kana kasoo gashay. marka waxaa muhiim ah haskeedka ama xawaare aad ku socoto inaad markaasi aad ula socoto. marka maxay tahay waxyaabaha saxda ka ah? waxyaabaha saxda ka ah waxaa waaye yoo iska anpassa min haskeedi trafikanta motorvägen. xawaaraha aan ku socdo ayaa markaasi ka taxadiraya si aan markaasi aan trafiga motorvägen aan u galo. waana muhiim inuu qofku meeshaan calaamadan uusan ka gelin oo ka gala dhanka kale. jawaabta sidaas ayay markaasi sax ku noqonaysaa. su-aasha 32aad su-aashan 32aad waxay ka hadlaysaa waxay tahay in sugarin forere wiil dhalinyaro 20 jir isla markaasina baasaqeerihiisa ama dadka baabuur ku saaran ay yihiin kuwa markaasi baasaqeeraha dadka gaariga u saaran isla socdaan. xaaladee wey xaaladda ugu riskiga badan oo markaasi uu dhici karo shilalka ama uu dhici karo marka uu qof yani sugaring forere uu macnaha uu haysto baasaqeerar kale ku haysta gaariga. xaaladaha ugu adag oo dhici karo waa goormee? xaaladaha ugu adag markuu sugaring laguma sheegin inaga waxay tahay, laakiin meeshan ayaa hadda lagugu sheegaya markaad aragtay inta badan khatarta ama riskiga waxaa inta badan wadankani dusha loogu ridaa ragga. dumarkuna waxay yihiin kuwa markaasi aad u fashigtid badan oo macna u taxadir badan. diida marka fiiri naar forer har en man som har man som baasaqeerar. forer markuu nin yahay isla markaasi uu haysan ninne waa marka ugu daran oo riski weli ku dhaco, sababtoo raggu inta badan beverkning ama maaragtay saameyn ama group trick oo isku sameyn karaan. laakiin mujida tan kale hadda kavina lagu dhaha isla kavina ma naqan qarayso. marka mar walba haddii riski ay tahay yaa u nugul ama u fudud waa ragga inaa markaasi mar walba aad qaadato jawaabta. waa su-aashana ujeedaan waa d. su-aasha 33aad okay, for vilken ska gälla trafikförsäkring vid gårdsken. maxay tahay trafikförsäkring waxyaabaha quseeyo markuu aad macnaha gaari iyo wax isku dhacdaan? maxay tahay waxyaabaha quseeyo haddii aad gaari isku dhacdaan? waxyaabaha quseeyo waxa waaye en bar skadona for motpartners fordon. macnaha waxa waa gaari kala ku dhacdo ayaa uu yahay midda trafikförsäkringa ama caymiska ay quseyso. waa gaari iyo gaariga isku dhacay, labadeen gaari unbaa marka sheekeysanayo trafikförsäkring waxaas waa. laakiin haddii försäkring aad arrimo kale waxyaabo kale aad samayso försäkring ma qus because gaarigaaga ayaa markaasi caymis ku jiro. su-aasha 34aad su-aasha 34aad var är som avgör hur länge man ska låta en motorvagn vara inkopplad för start. su-aashan waxay ka hadlaysaa waa xilligee marka uu qofku uu go'aaminayo ilaa iyo waqtiga uu markaasi motorvagn ah oo gaariga lagu xira ah oo bateriga gaariga lagu xiraa inuu incoplad ku ahaado gaariga inta aan markaasi la daarin gaariga start lagu sameynin.
marka inta badan waxa waaye su-aashaasi marka use temperature uu ku jiro intaas ayaa macnaha aan lagu ogaan karin maadaama waxaana lagu isticmaala kuwa qaar waa jiraan oo lagu xiray bateriga gaariga oo yani si uusan ugu dhicin dabka ayaa laga wadaa midaan ma aragtay motor varmar aha meelaha qaar inaad ku aragteen ayaa macquul ah oo banaanaha ku dhagan oo kale marka xilliga qabowga jiro oo kale si gaariga baterigiisu u dhicin sidoo kalena kuwa qaar way leeyihiin meelaha sharar oo kale laakiin use temperature markay tahay waxa waaye waa wax markaasi go-aaminayo ilaa iyo waqtigu markaasi motor varmarhaasi haysanayo su-aashaba haddaan dhaho ceasefire waa sida ujeedaan su-aasha 35 waxaa lagu leeyahay waxaad bilowday inaad shore om ku samayso lastabilkan huruska duyaradana situquuna xaaladda markaad inaad baasta isku dayda maxaa sameynaya it means meeshaas lastabilkan ama baawul kale kasoo socdo oo si fiican u muuqan maxay tahay waxyaabaha markaasi sameynayso waxyaabaha marka aad sameynayso ugu fudud waxaa waaye du must afbrita waay ama macnaha yo afbrita am shoring oo gotibaka til hogar sharfad waa inaad wadada ku noqotaa sababtoo gaarigu waa dheeryahay gaarigana xawaaro uu ku socdo markaasi ma ogaan kartid inta aad riski qadaleeda marka waa inaad wadada dib ugu noqotaa su-aasha midaas ayaa markaasi sax ah oo aada ah su-aasha 36 waxaa lagu leeyahay gaari ayaa waxaa ku dhacday maaragtay rodyur ayaa ku dhacday oo markaasi wadada adigoo markaasi gaariga kaxeynayo okay samdor iyo koloqunan kaasoo markaasi dhintay maxay tahay waxyaabaha qildiga adiga bahal ayaa wadada ku dishay maxay tahay waxyaabaha oo ku qasban tahay in aad markaasi sameyso maxay tahay waxyaabaha aad ku qasban tahay inaad sameyso maxay tahay su-aalihii marka waa lakala bedel filita marka ut plus marka way soo celiyeen marka jawaabta saxda ayaan toos u abaarayna oo ah c marka ut plusan waxa waa mar walba inaad meesha calaamayso filita road urid yani inaad bahalka meesha aad macnaha ka dhaqaajiso on the leader trafikantan oo aan meelo kolquun ti boolisan arrintaasi kolquunka dhacay waa inaad markaasi xaaladaasi aad boolisku amal garaysaa si ay ogaadaan meeshaas inay markaasi wax ka dhicin ama marka bahal uu yaalo in laga qaado su-aasha markaa loo ceasefire waa c su-aasha 37 waxaa lagu siiyey 3 calaamadood kala duwan a b c ah calaamadahan waa inaad kor ka taqaana fahmi karta maxay sheegeen maxay macnaa ii sheegeen oo tilmaamayaan qofka waa inuu si fiican ugu fikira u ogaadaa si marka uu arko isla marka uu fahmi karo jawaabta ama su-aalaha markaasi la weydiinayo maxaa la weydiiya hadda 3 calaamadood baa ujeedaan meesha ay dhigeen gaariga meel sax miyaa ha mise maya waa su-aasha marka ha he mise maya marka waxa waaye nay ingen of bilan waxa uu markaasi sababtoo kan haddaa ka bilaabno waa huvadlet wadada waa absolute lama dhigi karo kanoo kale fiiri waxa waaye meesha calaamada exact oo lagu leeyahay mafor inta yani stano dhigtay ninkana waxa waaye for ayuu dhigtay marka after oo kale marra qaar waa loo gelaa for oo dhigtay marka lama ogolo waa ingen of bilana samhar tilot at parkera 38 okay laba calaamadoodna la siiyey labada calaamadood markaana la siiyey waxaa lagu leeyahay for du någon av situationen svänger till höger utan att först stanna labadan xaladood miyaad leexan kartaa adooda markaas mid ka mid aadan istaagin su-aasha si fiican u fahm xaaladana ujeednaa waa hogar way traffic signal baa dhigan xaaladanne waa hogar way leedahay right from way leedahay laakiin traffic signal ayaa markaasi meeshaas ka dhigan laakiinse yuu ku mashquulinin waxna maaragtay sababta markaas stop signalkan waxaa waaye dayalar dom som ska köra rakt fram om du svänger höger waxa waaye the health maaragtay shefrid inaa markaasi aad leexato waa su-aasha adiga kuma qusayso qofka waxaa laga inuu calaas arko meeshan gaduud ay xiran tahay oo dhow tambisa ii fura marka waa qayaano marka waxaa waaye iyo booda situquun sababtoo ah adiga kuma qusayso stop signalka waxay qusaysaa domsom ska köra rakt fram okay su-aasha 19 varför blev vanay för 15 år mer att silent implant olyckor än maxay tahay sababta inta badan ay u dhacdo in dadka waaweyn yaa oo kontonka sano ay macnaha inta badan ayna shilal iyo waxyaabahaasi ku dhicin marka loo barbar dhigo dhalinyarada yar maxay tahay sababta ayaana la weydiiyey sababta marka waxa waaye waxay haysaa xirfad aad u badan oo domahar meer el farheed sababtoo konton sano ka badan ay gaari wadaayeen marka dhalinyarada sidaas ayay markaasi ugu taxadir badan yihiin su-aasha kontonaad duskasfenga venester vayeller xaaladan waxaa lagu leeyahay waxaad u leexaysaa dhanka bidixda maxay tahay waxyaabaha markaasi quseeyo marka waa fahmayna inka lagtida meeshaan ka yaalo adina duskasfenga venester baad u leexan doontaa marka waxaa waaye traffic rectifram iska loo tamay shore force waxaa waaye traffic rectifram iska loo tamay shore force sababtoo haddii kuwa kastoo socdo hogaregal baa kasaa ugu shaqeey because calaamadan huvadleedka way dhamaato waay traffic socdo ayaa macnaha sii deynaya gaarigan venesterka markaasi u leexanayo haddaa si isfarnahno ma ujeedaan
su-aasha 41 waxaad usoo dhawaatay cautioning oo markaasi Fanny's Bleak markaasi leh haye hur kan du bästa visa andra trafikanter att du tänker lämna fortare maxay tahay waxyaaba aad samayn karto oo aad tusi karto in gawaarida kale aad markaasi ka taxadirayso ama aad ka fikirayso waxa waaye iyo sankaraskeed igutid waqti fiican ayaa xawaara markaasi dhimaysa si ay u ogaadaan in gawaarida kale aad ka fikirayso gaarigana aad u kontroli karto su-aasha 42 waxaa lagu leeyahay Fanny's det fordon som har bredare än 260 centimeter som får på allmänhetsvägar ma jiraan gawaari markaasi ka balacooda ka weyn yahay 260 centimeter ma jiraa oo allmänvägar macnaha wadooyinka waaweyn markaasi lagu socdo sababtoo ah inta badan 260 centimeter bredare ka badan laguma wadi karo wadada taas ayaana loo ogolyahay qof gaariga marka hadduu la xalo wax qaadayo kale waa inuu ballaciisu ahaadaa 260 centimeter marka waa jira laakiin Enbart waxa waaye kuwa fordon som har särskilt tillstånd haysto ogolaansho gaar ah tusaale ahaan kuwa baadiyaha kale ku nool oo kale haddii baabuur waaweyn oo kale cagaf wax weyn oo kale jiida kale gaaridu waa weyn oo kale waa loo ogolyahay haddii ay balcooda ka weyn yahay 260 centimeter su-aasha 43 haye waxaa lagu leeyahay vilken av följande utrustning i bilen är viktigt för att minska risken för att du blir skadad om du blir körd bakifrån maxay tahay waxyaabahan utrustingkana la siiyey midda ugu macnaha ii sheeg ee fiican isla markaasina yareynayso riskiga uu qofka haddii uu markaasi dhaawac yani ii sheeg imaado kale haddii uu gaariga bashort bakifron gadaal markaasi laga dhaco gaariga maxay tahay waxyaaba utrustingka ugu fiican oo gaariga markaasi yani ii sheeg yareynayo riskiga kuwee waa lagu leeyahay marka waxa waaye sida waa huvudset nextset waxa waa haddii gaarigu uu qofka inta badan macnaha isha qaybta qoorta oo kala martay gaariga nextset huvudsetka uu qaabka fiican u fadhiyo ku aadan yahay inta badan khatarta iyo riskiga imaan karo waa mid markaasi aad u yar su-aasha 44 waxaa lagu leeyahay du ska med din bil och hämtar en rullstolsbron kamerada sambur badan hargatan adigoo wadadan macnaha qof degan oo rullstol ku fadhiyo ayaad markaasi kasoo hemteynaysaa for du kör in magatan hemtar hono qofkaasi inaad meeshaan gasho ma soo wadi kartaa because calaamadan maxaa waaye gacmis wata idminis waxa waa gonfart waaye meeshaan waxa waa dadka inay ku socbisa lagu talagala gaari kuma qorno marka waa forbid inaad gasho laakiin marmarka qaar qofka maadaama rullstol uu kusoo fadhiyo uuna maaragtay meeshaan ay kasoo hamteynayso qofka intuu imaan karin waxa waa tagsiyadoo kale gawaarida qaar oo kale way geli karaan sababta aan leenka u galayaan waxa waaye qofkan xaaladiisa ayuu markaasi qofku kasoo wadaya marka waxa waaye after some hambur dan hargatan meesha ayuu qofkan ku nool yahay rullstol ugu fadhiyaa marka duu hayureed aad hemta su-aasha 45 vilka bestående stämmer hur ung förare allmänhet uppfattar sin egen körförmåga waxaa laga hadlayaa meeshaan marka waxay tahay marka laga hadlayo dhalinyarada yaryar sida ay u fahmaan inay körförmåga yani darawalnimadooda inta badan dhalinyarada waa sidee marka waxa waa dhalinyarada inta badan de flesta unga man tror att de kör bättre än genom sitt bilsliten macnaa inta badan dhalinyaradu waa mid kuwa markaasi isku maleeyo inay inta badan ay yihiin dad markaasi si khatara gaariga u kaxeeyo markii isku celcelis loo fiiriyo dadka macnaha isha gawaarida wada marka waxa waaye dhalinyarada inta badan khatarta waxyaabay ugu badanta oo kale waxa waaye waxyaabahan oo kale oo ah waxay u maleeyaanba inay yihiin dad markaasi dadka dhan gaarida wadaaya inay marka iyaga khatarsan yihiin sidaas ayaa mar walba riskiga iyo waxyaabaha maaragtay khatarta iyo uguna fududiyiin teorigan inta badan maaragtay su-aalahaas ay ugu imaadaan su-aasha intaas ayaan kusoo koobayaa insha allah inta aan kulankiisa xig ku kulmi doono iyo weliba cashirkeena kale waa la asluubooda leh sida iyo nabadgelyo insha allah wixii fariin ama tala ama maaragtay fikir soo jeedina qaybta commentiga noogu soo qor ka faa'iidaysi wacan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah